hal cod iyo hal qof weli la gaarin ay markastaba rajadu ay ahayd in la gaaro waxaan u malaynayaa insha Allah waa la gaari doonaa xilliga noqotaba laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in waxa weeye taas la gaaro guddiga doorashooyinka barnaamijyadan uu qabanaya hadeer waxa weeye inuu ka wacyigeliyo bulshada qaybaheeda kala duwan si ay waxa weeye hawlahaas ay u gaari lahaayeen waxaan u malaynayaa hadda ka horna degmooyin kala duwan way tageen kulamo badan way la soo qaateen bulshadii muxuu ahaa fikirkooda iyo muxuu ahaa ra'yigoodana waxa weeye way soo ururiyeen haddana ma sha Allah xagga waxa weeye golo wasiirana la jooga waxaana la jooga gudoomiyaashii gobolka waxa weeye bari dad badan oo waxa weeye mas'uuliyiin wayna la joogaan laftigooda waxaan jeclaan lahaa in fikradii ay bulshadu soo dhiibteen in muxuu ahaa tebek ay wax ka taabtaan si ay waxa weeye laftigooda u ogaadaan waxaan inii rajaynayaa insha Allah sanadoo dhan waxa weeye waxaan noo rajaynayaa in waxa weeye insha Allah hawshan hadda socota inaan guul ku dhamaystirno oo insha Allah waxa weeye aan gaarno hal qof hal cod السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته hadda waxaan kalmada siinayaa soo dhaweynayaa gudoomiyaha kunsa fadlan si uu بسم الله الرحمن الرحيم. gargaarka dawladda Puntland golaha wasiirada gudoomiyaasha gobolada iyo bulshada reerka qaybaheeda kala duwan iyo xisbiyada maanta halkan jooga oo ayagana barnaamijka ka qayb galaya dhamaantu waa salaamay inta kadib waxa farxad noo ah waxa runtii waxa weyn maanta noo ah kulana kan oo aan runtii u aragnay kulan muhiim ah waxaan marka ugu horeysa bogaadinaynaa guddiga doorashooyinka kumeel gaarka shaqada ay qabteen oo sharafta leh oo qiimaha leh runtii inay soo saareen ilaa 5 xisbi hadda meesha ka sheegay waa bogaadinaynaa waxaan bogaadinaynaa shaqada iyo dhiirigelinta oo aan dhiirigelinaynaa inay shaqada maanta qayb ka yihiin gudoomiyaasha gobolada oo runtii ay u tirinay bulshada wakiil ka yihiin barnaamijka inay maanta qayb ka ahaadaan goobjoog ka ahaadaan waxaanta ka ahaadaan waxaan kaloo ayadana runtii muhiim ah in dhalinyaradii iyo kulligood ay joogaan anoo ka hadlayo magaca bulshada rayidka ah waxaan bogaadinaynaa waxaan hambalyaynaynaa waxaan runtii garab taaganahay guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah waxaanu nahay saaxiib iyo shaqooyin badan baan wada qabanay runtii muhiim bay noo tahay in Puntland ay hore u socoto bulshada rayidka shaqada koowaad oo ay mar walba danaynayaan oo habeen iyo maalin casar iyo duhur iyo galab aan mar walba jecelnahay inay horumar laga gaaro waa dimuqraadiyadda Puntland haddii horumar laga gaaro waxa horumar gaaraya shacabka Puntland waxa horumar gaaraya dadka codkooda uu samaanta halkan joogo waxa horumar gaaraya dimuqraadiyaddii kala damaynta iyo horumarinta Puntland bulshada rayidka waxaan kulana kan aan goobjooga ka nahay aan mar labaad ana hadalka soo koobay aan mahad celinaynaa guddiga doorashada waxaan dhiirigelinaynaa xisbiyada ku dhiiraday inay shacabkooda waxa weeye matalaan oo ay halka yimaadaan maantana la siin doono shahaadooyinka kumeel gaarka ah waana iyagana halkan aan marxaanti ka nahay aan u joogno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahad celinayaa guddiga doorashada waxaan mahad celinayaa qaybaha kale oo barnaamijka qaybta ka ah waxaan mahad celinayaa cid walba halkan maanta ka qayb gashay oo kamid yihiin gudoomiyaasha gobolada oo aan u rajaynayo in ayagana gobolada ay joogaan oo ay dad badan matalaan oo halkan imaan karin inay barnaamijkan qayb ka noqdaan ee gaarsiiyaan maadaama ay bulshadu ka leeyihiin ama hasantii وعليكم السلام ورحمة الله. هذا حبين كم ده دلالها دلالها بنتلان عبد الكريم محمود أحمد تفضل هذا شكر
بسم الله الرحمن الرحيم guddiga doorashooyinka bulshada rayidka saxaafadda xukuumadda iyo dowladda golayaasha dowladda wixii ka jooga hay-adaha dalada dhalinyarada iyo dalada bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib farxad weyn bay noo tahay maanta ka dhalinyaro ahaan inaan aragno guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka ah dadaalka badan ay wadaan iyo sida ay ummadda ugu shaqaynayaan aad iyo aad baan u dhawaadinaynaa haddaan dhalinyaro nahayna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan si dhow uga shaqeyno guddigan haddii ilaahay yidhaahdo dhalinyaradu sida keliya wax ku noqon karaan waxaa weeye in doorashooyin la helo hal qof iyo hal cod ah taas oo ay hirgelinteeda u xilsaaran yihiin guddiga loo igmaday runtii waanu jeclayn meeshii guddigii hore maxamed xasan barre hogaaminayey ay gaadhsiiyeen in laga sii wado si maanta loo joogo meel meesha ka sii sarraysa haddana qadarta ilaahay meesheeda weeye waxaan rajaynaynaa inaad dadaali doontaan insha allahu tacaala ka gobol ahaanna anigan u jeedin barasaabka gobolka annagoo isku duuban gobolka dhallinyaro iyo xukuumadba ama barasaabka gobolkiila dowladda waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano hirgelinta doorashooyinka haddii ilaahay qadaro guddigu marka ay soo dhammaystiraan annagoo markii horeba doorashadii tan ka horreysay oo cilladaha farsamo u baaqatay iyadoo gobolku ka xasaasiyad badan ka intervention badan yahay aanu degmo kasta gaadhsiinay qalabka lagu codayn lahaa haddana may suurtogelin haddana waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala inaan hawshaas si fiican uga qayb qaadano ka dhalinyaro ahaan iyo ka waxa la yidhaha bulsho ahaanba aad iyo aad baa idin salaamaya haddana kaalinkii waxaa soo haray ama dee xiga ururada siyaasadda oo aynu filayna in cid ay ka hadasho cabdiraxmaan cusmaan cali axmed oo ka socda ururka himilo ama gudoomiye u ah reer fadl adigoo afka ururada oo dhan ku hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مركب والرئيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وإلهي المهديس haddii maanta puntland laga hadlayo oo la isugu yimid ururo siyaasadeed in la furto ama la furtay 20 sano jidaayo constitutionka ugu horreeya waxay ahayd 3 sano u horreysay in la sameeyo nidaamka asxaabta badan maanta ayaa xogaa yaroo hidilaa muuqata waxaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan kaloo leeyahay dowladdu inkastay aad u dadaashay oo sharciyadii iyo wixii ay dhammaysay haddana qabyadu waa badanta waxaa weli qabyo badan baa weli jira waxaan kaloo dareemaynaa haddii siyaasad iyo ururo iyo waxaa la aaday inay laga maarmaan tahay in la helo maxkamaddii dastuuriga iyadoo lagu kala bixi lahaa haddii qodob sharci la isku qabto dalkeennu 18 sano iyo bar iyo wax la jira weli maxkamad dastuuriga ma hayno ururada siyaasadda waa la furay laakiinse waxaad moodaa maanta haddii qodob sharci la isku qabto ama fasilka dastuurka laftigiisa fasilkiisa la isku qabto meel isla aadoo lagu kala baxo ma laha dhammaanad rasmi ee ururadu ma haystaan siyaasadeed oo maxkamad sharciya waxaan ka codsan lahay dowladda laftigeedu inay soo dhammaystirto
labada xubnood oo ka dhiman guddiga doorashooyinka waxaa kaloo aan codsanaynaa maanta shirka hadda aynu u fadhino waxaa lagu qoray state level engagement waa maalinta ugu horreysay oo dowladdu ay si fiican uga soo qayb gasho 10 daqiiqay nala joogtay wasiiradeedii nala joogeen waa iska tageen waa nasiib darro laakiinse haddii ay markaa ajiibada yimaadeen noogu dhan innagu hawsheena waa wadanaynaa shacabka iyo ummaddana waxaan leeyahay dowladdu xisbi ma laha mana furan laakiin shacabkaa laga raba xisbiyada inay furtaan shacabkaa laga raba inay doorashada iyagu samaystaan haddaan nana waxba dowladda ku suganna waxba inaa yimaadeen innaga shacabka waxaa loo baahan yahay inaynu xisbiyadana furanno sharciyada yaa la dhammaystirno u soo bannaanbaxno xisbigeennii iyo ururadeennii aan taabogelinno aynu ka baxno nidaamkan 4.5 ah oo meel kasta iyo goor kasta aynu ku eedaynayno inaan waxaynu ku hagaagayno inaan mar kasta 4.5 ka eedayno iyo inayna ururadii samaysanna iskugu helno ama 4.5 aan joogno oo ku qanacsanaano oo asagaynu ammaanano iyana iska caayo ama aynu ka baxno maanta jaaniska iyo sharciyadda iyo nidaamka u haysanaayeen oo aynu ururadeennii iyo siyaasaddeennii iyo xisbiyadeenni aan dhisanno doorashooyinkii dowladaha hoose aan qabsanno saddexdii xisbi qaran ha samaysmeen waxba kama cunno muddo hadday jiitabaan wacyigelin badanna ha la sameeyo guddiga taybaak waa u mahadnaqaya dadaal badan bay hayaan waa ogahay duruufaha adagay ku jiraan waa la socdaa saaxiib dhow baan la ahay waxaan leeyahay idinkuna hanjabinina annaguna hanjabi mayno waddankana aynu gaarsiino insha allahu tacaala dimuqraadiyad nin iyo coda aynuna guddiga dhiisha isaga dhigno oo aynu qabsanno wixii aynu qabsan karno wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم وديقنا حتى الله هيو كي جاحي هاي محمد حاج آدم ولويها أوروكا كرسوس كرسول وحيرته وعلينيشا وهذا كرسول مدني وسلامتها دولتي تمنا ينوى شاغونتين تهي وتحيب سبيلا الفري أنا حاجة يا عماي يحسبوته لابو وهذا كان قالوا عليك ورونا هاو كاسات قال لا برا لا ما كقصر ولا سوق يا مالي بالله ورجل تذكر قلبتها في رجل بقفك اللي سوق ربنا قريه سيدا قريق الله قراه إلهي وابيه ولا قال قريق تاسع يرمى لسيتي أنا واقع دمتاتي من هذا أنا انتين التاني حاول لي خطرة أبوي جاية لحظة لي سديدي تواشان واللحظة لي سديدي قولها من الشيء بيده قولها دولة حوصة حل بالغ وكبول استي دولة دي محاسة بخار لين قلبتي قلت هالكاسي بقلك على العربي وعالتي أنا جو كرسي هيستخدمون انقلابكي لا يقول لي كذا عند الشمال يقدر بل كوي نيكي لقى قال حكم ما ينفع وحلاه دور الشباب وقت أنا وهذا ما يبقى كتشوف الحسبية أنا حسبي هي مدحوينه يسير لكن إلا اللي يرى وكيني صدق كوينه قال مبني سنة ربا هي قبل كوين تقولنا لا على وحكم حولي أنا تاسع يلبسن وحاولي دولة ما أنت لستي أو أبراتي وحان لها شيء أبراتي ويه
cabdiraxmaan ismaanow ha oran geela goormaa la qaybinayaa geela kan colka ah oo laysku wado ma waan la qaybinayn intii ka baqaya in hadhow laga qadiyo baa wuxuu yidhaahdaa war geela kan laysku wada coliyo cadaawqaadka goormaa la qaybiya ninkii laga baqo ninkii ka baqaya in laga qadiyo baa qaybiya qaylin mayno nala ka qadin mayno nala aftuumi mayno iyagaada afkuu buuxaay dowladdu haddeer ladan oo jirarkuu buuxay ina waaba baranna haluu baran iyo haluu buuxana layskuma dhifto dimuqraadiyaddaasi waa hirgelaysa insha allah anugu xilal badan waa soo qabtay madaxweyne ku-xigeen waa gaaray wasiirkan waa gaaray jabhad iyo ku-xigeen libaaxyar waa la shaqeeyey cabdullaahi yuusuf iyo caydiid iyo haddii agii rag ahaa horta anugu sistamka waa aqaanaa kaas waa ku guulaysanayna anigu qolina qaadan mayo haddii xisbi mar qalin lay oggolaaday waa haddii layga dheereeyo qoliga waxay u kalifayeen marka afkana layga xiray gacnahana layga xiray lacag shilin ula ragtabi kara ma jiro lacagta guryihiinaa dhiganaysaa ninkii lacag laaluush bixiyaa kaasi waa ninka xaribaa carab laaluush la qaadan mayo xildhibaan lagu soo geli mayo dhallinyaro miiran baana soo gelaysa ha ka baqina anigu 68 baan soo galay dhallinyaraan ahaa waxaan u hari waayey 68 iyo haddeer anigu haddeer ma weyniyo waanigayga khaldaan ku ka weynaay waxaan u hari waayey wixii waagii igu jiray iyo xoog baan garanayaa durbaanka todobada garaaca socodka habeen afna nalaafku jabhad bay loo geysay jabhadoobi mayno xabad qaadan mayno dadkaynu kasbanaynaa waa bargaraamkeennaan dhiganaynaa guddoomiye waa mahadsan tahay guddigiina waa mahadsan yihiin madaxweyne waa mahadsan yahay baarlamaanku waa mahadsan yahay waa inoo tartan wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم هذا نكي aanu islahayn wadada dimuqraadiyiinta ee Puntland isaga markii ugu horeeyay abaata jeexay oo aabo u ahaa gudoomiyihii guddiga TPEC ugu horeeyay gaarsiiyeen runtii meel shii ugu dambeysay ay kaga xooga xamaatay maxamed xasan barre tafadal روضو بالله يوضي وديك كثر يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لمان وحان السلام يا انت من الشفالي ودينك استكسر عطا دور شويكا الدنياشا قولكا هدي جوغان برلمانك الكجوكتو قرك ايودو دلكا بوسا من يرانا ايوه عندي هكتين هلا كادين انت كسوق المشهور ما غيروا مناسبتها ليش كاجا جيرو ديس لا يرينا هذا ويه marka ugu horeeya waxaan jeclahay inaan magaalada Muqdisho laba qoloba ama saddexda marka waxaan ogaanay u jeedinayaa guddiga doorashooyinka Puntland oo hawlo badan ka soo qabtay halka maanta in la soo gaaro wax saara maaha wax hawl yar maaha hawl dhibaato badan weeye marka waxaan ilaahayna ka rajaynayaa halka uu maanta soo gaarsiiyey ilaahay u sahlo tan ka dambaysa inuu soo gudbo waxaan ka soo jeedinayaa bogaadin ururada siyaasadda u bareeray inay nidaamkeena ku lagaadno oo qaaliga dalka saaraan
waxaan yeelaya taariikhda qori doonta waxaad qabateen waxaan rajaynayaa inaad jidka ayna ka leexan nabad iyo maaragtay istinaan iyo xurmad aad ku wadaan hawsheenna hawl yar maaha waxaan marka si bogaan baan isu joodinayaa inaad maaragtay hawshaa wadaan bogaanta saddexaad ugu muhiimsan waxaan usoo jeedinayaa dowladdeenna waannagu haddaan guddi hore ahayn waxaanu haysanay saboot waxaan ka haysanay adduunka iyo dowladdii jiday markaas dowladda hadda guddigayga hadda jiraa waxay ka haystaan saboot keliya dowladdeenna keliya dowladda soo gaarsiisay heerkan inay gacan siiso oo agab siiso xafiisyo siiso maalkii iyadana mahadnaq iyo bogaan baan isu jeedinay waxaa sharafay halka joogaan guddoomiyaasha gobollada iyo ururada bulshada iyagana waxaan kula talinayaa arrintowna haddaan gacanta la isqabsan oo la isla riixin guddiga doorashada wax ma qaban guddigii ka horreeyey anigu waan ku macunaa gudoomiye ka ahay barbarashaha laga dhigo waxaan ku marbaranayna markii ugu horreeyey leedahay markii ku xigayna waa kan marka wuxuuna waa ka tagnay wuxuuna waa naga qaldameen mayna gaarin natiijadii laakiin hal baanu gaaray in dadka ay la sameeyo in shuruuc loo sameeyo dadkuna uu noqon karo xisaab noqon karo waxaan rajaynayaa meesha ay u socdaan hadda guddiga doorashadu ilaahay inuu gacan ku siiyo ay najacaan waxaan magaaladu jeedinayaa eedda noo aad iyo aad ugu taagnayd ilaa kii hor iyo kan dambe kanba bidaarsay oo marna ka seexan hadday la jirin guddiyaadkana kulba kaan la yihin kana waa filayo inay maaragtay aan aad ugu mahadnaqo hay-addaas maaragtay gacantay ka siiso guddiga doorashada waxaa mahad gaara mudan keer oo maanta halkan maaragtay ka soo qayb gashay keer waa hay-adaha xumaliya dalka ugu firfircoon uguna daacadsan inay puntland wax u qartaan waxaan rajaynayaa in bogaadin iyo mahadnaq loo cesho waxaana ka codsanaynaa inay u sii waddo saboodka iyo gacansiinta guddiga doorashooyinka iyo ururada siyaasadda intaa haddaan kaa baxo puntland ogaada waxaa la gelayaa maad isdil iyo cay iyo buuqbuuq maaha waa nidaam siyaasiya oo xukun lagu kala wareegayo nabad iyo wanaag waxaa la rabaa marka inaad maaragtay nidaamkaas la xurmeeyo waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ureystano oo maaragtay registrationkii aad ku dhammaysataan sida uu qabo sharciga iyo dastuurka haddii laga gudbo kuwaas wax socon maayo waa in lagu dhagaa waana inay ku dhagayaan guddiga doorashooyinku shuruucda u dhigan ururada siyaasadda si loo haddii meel kenya laga leexdo waa kaad daadanaysa marka halagu dheganaado way midda u leexanaysaa tinkeeda u leexo kana u leexo waa daadanaysa guddoomiyada gobollada xil weyn baa ka saaran usaalidda ururada siyaasadda iyo gacansiinta guddiga doorashooyinka waxaanu inay hirgalaan waxaa laga kaa baxayaa waxaa taariikhaa qormaysa taariikhduna haddee in walba ilaahay meel u gaarsiin doona dadkeenna u mareen ururada siyaasadda iyo guddiga doorashadaba iyo puntland oo dhanba waxaa loo baahanya taarikha inay ka faa'idaystaan meesha ay marayso oo dowladdii iyo shacbigii iyo xidha isla jiraan waxaan rajaynayaa shirka ku xiga in halkaan ka daawano ururadii siyaasadda oo soo buuxiyey shuuladihii laga rabay oo la siinayo warqaddii ixtiraafka ugu dambaysay inay ka qayb geli karaan guddiga doorashada dowladaha hoose ee puntland taasoo ah wuxuu u dhisan yahay guddiga kale wax kale waa dhisan sheekooyin ku sheekaysano meelaha la fadhiyo uma dhisan guddiga hal wuxuu leeyahay mas-uula u damaysta inuu qabto doorasho xalaala oo dadka ka dhexaysa oo dowladaha hoose ah oo soo registergariyo 3 xisbi oo wadaniya kadibna shacbigiisu ku gelaya ummadda kaleeta cidda ilaahay u qoro soo noqoto iyo kii aan soo noqon iyo waxbaalkii sidaa ha la ogaado wax ku darid iyo gudda kale dhis iyo gudmaax mudda waa ku meelgac waxaan kaa baxaya hadalkayga aad iyo aadna waxaa ilaahay ugu baryayaa inay ku guulaysano nabaddaas iyo barwaaqadaan haysano waa ogtay waxaa dalka ka jira aad baa waxaan u tagaa xamar
garowan waa ku noolahay nimcadaan haystano ilaa ina siiyey ha dhaqaalaysano asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حسن برنامج ومهتم يهي افتيمين بدن بوسميي وهنتي لو باهنا oo ku saabsan nidaamka iyo siyaasadda u degan guddiga doorashada qardajeexna lama baahna uu yiri wadada ay tahay baasha loo soo maro waxa marka halkan aan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha haweenka sagaalka gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac fadlan بسم الله الرحمن الرحيم وهري سلامية guddiga doorashooyinka kumeel gaarka gudoomiyaasha gobolada Puntland ururada xisbiyada cusub oo aad aan ugu farxay oo rag badan oo saaxiibaday ay ku jiraan oo maxamed xaaji aadan ugu horeeyo iyo xisbiyo kale oo iyo xisbiyada gabdhaha u badan haddii aanu ururada haweenka haystaa xisbiga gabdhaha u badan bal maxamed xaaji aadan oo raacaya halkan aad baan waxaan ugu faraxsanahay heerka la gaaray Puntland dadkii wax ka dhiso haweenka ahna waa joogaan oo ka mid tahay Arda Saciid meelo badan bay soo martay Puntland maanta waxay taagan tahay heerkii loo baahnaa oo sharcigeen aynu qoranay uu sheegayo xisbiyada waan in garab taaganahay haween haddaan nahay dhammaantayo haweeno badan waa in ku soo darsamayaan waxa wax suurto geliya oo hirgeliya haweenka baa ka mid ah dhalinyarada ka mid ah waa in garab taaganahay waxaan ku faraxsanahay sida geesinimada loo ay isu duwaan geliseen maantana ay inii qaabishay xafladda inay ku dhigtay guddigii kumeel gaarka ahaa oo Puntland oo xisbiyada waxaan ka codsanayaa gudoomiyaasha gobolada Puntland arrintan waa arrin inoo ah inaynu ku dhaqanno waa arrin in la tixgeliyo ku fiican maxamed xasan barre oo khabiir ah wuxuu jecel yahay mudana dabada ka waday in dadku ay isku doortaan xorriyadooda isku doortaan xorriyadoodana isku maamulaan qofna aysan wax ka dhowrin gacantana isqabsadaan xisbiyada inay wada shaqeeyaan oo si sharaf leh wada shaqeeyaan gobolada oo dhan anagu waa tagaynaa haddaan ururada haweenka nahay waxaana ku tagaynaa farxad iyo sida aad u gashaan xisbiyada aad u samaysaan waana ku faraxsanahay maanta daafurkan weyn oo ay noo samaysay hay'adda Dakar way ku mahadsanyihiin hay'adaha samafalka international dhammaantoodna haddaanu haweenkii Puntland nahay waxaan ka codsanaynaa inay gacanta qabtaan xisbiyada iyo guddiga kumeel gaarka ah Puntland oo doorashooyinka haddayna wax nala qaban oo aydin la qaban xisbiyada iyo guddiyadaba iyo gobolada gudoomiyaasha gobolada ah wax noo suurtagelayaa ma jirto haddii kale haddaydan noo waxaynayna inaa wax cad noo sheegtaan weeye waxaan rabnaa inaynu isku tashanno inaynu horumar gaarno inaynu cadaalad gaarno inaynu xornimo gaarno inaynu rabnaa wax xisbiyada loo furay intaasaa hadalkayga ku soo gabagabaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay la tahay waa gabadhwadii baynu ku jirnaa hadda warqadda aqoonsiga diiwaangelinta guddiga ayaa la siinayaa mana aha warqaddii aqoonsiga shahaadada waa tii diiwaangelinta tan kale oo
shahaadada markeeda ay leedahay waa marka vetinka la soo sameeyo oo ururka loo aqoonsanayo inuu urur yahay hadda tii diiwaangelinta weeye keliya inay lacagta bixiyeen oo ay isregister gareeyeen warqaddaa markaa tfadal la akhriya warqadda si loo حاجة شيء سهل كان حاجة سهل بسم الله الرحمن الرحيم مرلبا waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ku hadlaya afka guddiga iyo dhammaan socodgayaasha golaha maanta aan isugu nimid waxaan rabnaa markhaanti horteena inaan uga dhigno ururadii aqoonsiga shanta urur ee xafiiska xarunta dhexe ee dowladda puntland jike ودي وانقشان ورقدي أقوسيا أنا والله مركزنا ودنياش دولة يدللها كله يودنياش الغير دولة أنت كله وحال شرارة يدنا هؤلاء الله يعني بقولتي بقصيمه ورقدي أقوسيا ديوان جنيتا ورقشنتا وحكروا من النوع ودوغيعير وقبلك بطلان البولية اللي نقعها معها وقونا بأحد دوي كعام برامة وغيرها بسوق أنا كيسو ما تسير وحانو يريا قرق ووه الريا ونصيب قوه لو حدثني وقرق سياسة ذلك المرة وأورك أمدا وأورك أوري ونصيب ويرشا لأنه وقطع وسيلة وقلت أكثر ونصيب ويرشا أورك أوري وبراوي إن أور سياسي رفع بروتلا تربية جماعة وما تري وما تسوي waxaan ku xojinaynaa garsoor
garsoor hacatanan waa inoo garsooni doonaa garsoor waa ururkii labaad oo nasiibka u hela inuu qaato maanta warqadda diiwaangelinta aqoonsiga xafiiska golaha dhexe ibek garowe isla markaas ururku waa ururkii labaad oo isu soo diiwaangeliyey inuu ka qayb qaato doorka ummaddiisa uu uga aadan yahay labadana halkaas kuga jira labada kale halkaas kuga jira aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan u yeelaynaa ubax waxa weeye waxay nasiib u yeelatay ka shaqaalinta saddexaad dhanka wada qaadashada iyo dhanka isdiiwaangelinta xafiiska xarunta tibet aad iyo aad u mahadsan yahay islaam waxaan u yeelaynaa himilo raggii hore waa ku aamini waayeen inay gabdhaha soo dirsadaan nasiib wanaag ururkan himilo maxay ahayto waa gabadhaasay soo direen waa ku mahadsan yihiin gabdhaha safka hore laga keeno خطر لما كثر الساعة منطقة بحيث العالي وحي قالين قانتي أفراد وأنيشا وقد منطقة روسيا أي كغالية أي قدقة هي حرمت الحيوتيب بنوغتي والبشير وعلومة العلم والنسيم waxaan u yeeraynaa gabagabadii caara aaran nasiibkiisay noqotay inuu noqdo xafiiskii iska diiwaangeliyey warqadda shahaadada warqadda aqoonsigana ugu dambeeya نسيب سنة لكن أنا مرة بدن وقدوميون الناس حريرية وحال سلام حتى ومدة وقهر مرة لكن وقت كأيام ما كان ستي على غير بدل بتشينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كسوحين وكنا معي ونهرتي نمكانتي كجدني مرلالكي وحرمت كيدا كاملة إن أمان فرصة وهو كبدتي بكأهان hortayna inaanu ku guddoonsiino waraaqihii aqoonsiga meelgaarka ahaa ururada siyaasiga waxaan u mahad celinaynaa maxay ahayto maxaa xasan barre oo oday ah oo puntland tirdhexaad u ah oo runtii shaqo fiican ka soo qabtay dimuqraasiyiinkii puntland qaybtii naga horreysay isaga qirayo wuxuu yiri waxna waa naga fududeen waxna waa naga saadneen haddaad hawl wadinna waa shaqadaada in waxna khaldamaan waxna saxmaan
waxa qaldanna waa la saxanayaa wixii qabsoomayna waa qabsoomeen waa saxmeen waana sharciyadii aanu miiska ugu nimi raggii ka tegay bay ahaayeen waa ku mahadsan yahay gabagabadii waxaan rabnaa shirkeenna xiritaankiisii baynu soo gaarnay aad iyo aad waad u mahadsantihiin warmartiyeedkii shirka ka soo baxayna waxaan ku soo ururinay 4 qodobka koowaad shirkan waxaa lagu kulmiyey wasaaradaha kale ah wasaaradda dastuurka wasaaradda warfaafinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenkeeda iyo guddoomiyeyaasha 9 gobol ee Puntland guddoomiyaha ururka haweenka dalladda bunsa dalladda dhallinyarada Puntland ee bayaan iyo guddoomiyeyaasheeda gobol ee isla hay'adda bayaan hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay Care International qodobka labaad ujeeddada shirku waa guddoonsiinta warqadda aqoonsiga diiwaangelinta ku-meelgaarka ah ee ururada siyaasiga ee Puntland si ay uga hawlgalaan gobollada Puntland oo ay xeerarka iyo ururada siyaasadda uu ku xirayo sharcigu in ay ku furtaan xafiisyo kalena ka diiwaangashadaan taageerayaasha. Lambar 3 wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada oo kaashanaya guddoomiyeyaashooda degmooyinka iyo qaybaha kale qaybgalayaasha kale waxaa isla qaateen in ay gacan buuxda la siiyo ururada siyaasadda si ay u fulshadaan hawlahooda shaqo. Lambar 4 waxaa shirka ka soo baxay ballanqaad in ay dowladda Puntland ay gacan buuxda siinayso taageeridda barnaamijka sida ay caddeeyeen wasiiradii kulanka goobjoogga ka ah. Lambar 5 sidoo kale shirku wuxuu baax u dirayaa beesha caalamku inay kaalintooda muhiimka ah ay ka qaataan dardargelinta barnaamijka dimuqraasiyadda. Gabagabadii shirka waxaan u mahadcelinaynaa ka soo qaybgalayaashii shirka ay ugu horeeyaan xukuumadda dowladda Puntland. waxaan mahad labaad u celinaynaa hay'adaha maxalliga ah oo mar walba nagala qayb qaata oo ay ugu horeyso BDRC, bunsa, Care iyo Zayful oo aan isleenahay runtii gacan fiican bay siisay. aad iyo aad u mahadsantihiin shirkiina. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.